wasiirka wasaaradda kalluumaysiga dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa maanta dhagax dhigay xarun cusub oo ku meel gaar ah oo ay kaga shaqeyn doonaan maamulka deegaanka Jasiira. Dhagax dhigan ayaa waxa ka qayb galay odayaasha dhaqanka deegaanka iyo mas'uuliyiin kale waxa ay noqonaysaa xaruntii ugu horeysay ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya uu ku hirgeliyay deegaanka Jasiira. Qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka oo ka qayb galay dhagax dhigan ayaa munaasabada ka hadlay iyagoo sheegay soo dhaweeyay xaruntan cusub deegaanka Jasiira maamulka socda Koonfur Galbeed marka waa soo dhaweeyna annagana wax karaankeen waa ka shaqeynayna waxaan ku faraxsanahay deegaanka Jasiira dhagax dhigay degmada ama xaruntii degmada Jasiira la dhisaayo maanta maamulayaashii iyo wasiirkii wax kalluumaysi asna la joogo waxaan dhagax dhignay maanta deegaanka Jasiira xaruntii oo laga maamuli lahaay lacag intaasoo lacagaha ku baxaysa ma jiraan dawladda dhexe Maxamed Siyaad Barre inta xarumaha dhisan hal shilin kuma bixin funday asugu milileeyada dawladdiisa ka soo qabto aqoon leh iyo dadka oo sakeelada isu dhiibaya lagu dhisay maamulka deegaanka Jasiira ayaa dhankooda madasha ka sheegay inay ku faraxsan yihiin hirgelinta xarunta cusub waxaana maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya kaga mahadceliyeen wada shaqeynta wanaagsan inaan si xilqaana inaan deegaankii aan xaruntii hadda aan dhagax dhigna aan u dhisno waxaan ka codsaynaa dawladda Koonfur Galbeed oo nagala joogo wasiirka kalluumaysiga kheyraadka badda inuu naga gaarsiiyo wasiirada madaxweynaha dawladda Koonfur Galbeed inay wax naga qabato xaruntan si xilqaan ah inaan u dhisno juudi inaan ku bixino maantana waxaan maraynaa in dadka deegaanka ay isku tashadaan ee xaruntooda maamulka ay dhagax dhigtaan odayaashii deegaanka ay yiraahdeen dhulkan waxaan u hibeynay in xaruntii maamulka laga dhiso haddana ay bixiyeen xaruntii maamulka odayaashii deegaanka runtii taariikhda baaldaha bay uga jiraan mana la soo koobi karo dhagaxan aad u jeedin dadka deegaanka anku lacag kama bixin dadka deegaanka ayaa isku xilqaamay inay degmo ay leeyihiin ay dhistaan ugu dambeyntii wasiirka wasaaradda kalluumaysiga dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdiqani Cabdullaahi ayaa ka warramay muhiimadda dadka deegaanka Jasiira ay u leedahay hirgelinta xaruntan cusub fursadan aan ka faa'iideysanaya dadka deegaankan ay ku nool dibadaha ku nool ama deegaanada kale dalka degan ayaga laftigooda waxaan ugu baaqaynaa inay ka qayb qaataan isxilqaanka muxuu ahaa loogu dhisay deegaankooda ayaga sharaf u tahay cid kasta oo deegaankan ku abtirsata ee sharaf u tahay in muxuu ahaa xarumihii dawliga ah la dhiso Roda Cabdi Xasan VOS TV Muqdisho.